saraakiil ciidan oo dhowaan uu dalacsiyey taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Saraakigaas Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa maanta neef geel ah iyo raashin kala duwan ku wareejiyey taliyaha qaybta koonfur galbeed ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed si loogu gudbiyo ciidamada tababarka ugu jira dugsiga tababarka iyo tayanta ciidanka asluubta ee magaalada Baydhabo. Talaabadan ayaa qayb ka ahayd dhiirigelinta iyo garab istaagga loogu muujinayo ciidamada ku jira tababarka waxaana lagu tilmaamay mid muujinaysa isku xirnaanta iyo wadajirka ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Xidigle Shiniye Cusmaan Khaliif oo kamid ah kooxda fanaaniinta qaranka ee Onkod isla markaana wakiil ka ahayd saraakiil uu dalacsiyey taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan ayadoo xustay dadaalada iyo taageerada joogtada ah ee ciidamada. Anoo Shiniye Cusmaan Khaliif maamulka koonfur galbeed oo ay hadan ciidamada asluubta Soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed ka tirsan dadka nasiiban haleen isbuuc inta la dalacsiyo saraakiil iyo nagdan xidigyaasho dhaqabkasi Saraakigaas Mahad Cabdiraxmaan Aadan wartu sunan hambaliyaan eedan mahadsan oo gaalo sukun hortay maddow way bageegan ka tala galnay un oshan qofe afar igaariyoonay anna afartaas of joona ka hadalo aan maamulshiniye ee diboogi kaanay way baan ka tala galnay geeqada dhameystiran waalo yoonay bariisjay qudaartis abtaashay macaan booris abtaan aan naas wal kasta iska jir ee iyaan ka tala galnay dibowgaana afartaas kuriina aniga wakiileef yoona ka hadalahay ay bana ku wareejiyay saraakiil oo ay tooshal dubo qaybta koonfur galbeed way bana dhaxsheegnay dugsigii tababarka koonfur galbeed ka dhahayaale abtaan qas counter fresh oo jalaan naas arahota geek dhasoyne saraakiil sharaftale oo laga doomo waa lagu deeqdan ayaa waxaa si rasmi ah u wareejiyay taliyaha qaybta koonfur galbeed ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed kaashaan la sare Aadan Cali Axmed Dhiigi Biriq oo ku wareejiyay taliyaha dugsiga tababarada iyo tayanta ciidanka asluubta Soomaaliyeed Dhame Xasan Xirkey. geeka dugsiga tababarka qaybta ciidanka asluubta يا ما يكوري جهاينة ورون كذا كان سرون ما يشانا سراكيشي دلعه معمد إذن كأسلوب كون كأتا يونا يراس كذا سرون سلم بالله وستاري كيجين كبشي أبيو لانكوا بدلع سيدي هذا جرتيو ولا نسكي هيدا إلي أول بلين كديبان ورشة مال بأي سبب تليها إيدك أسلوب الصوماليات Saraakigaas Mahad Cabdiraxmaan Aadan dareere mas'uul qaadnay walbadan codsi badan bijeedisidi oo madaxweynaha ku ogolaaday oliiskii usan qaadi in idin shay dalaca meel ka soo geeyay asluub roogda oo geed gaaban iyo geed dheer oo fooli inuu karaamayn waajibna saaran taliya ciidan ma xasanta mar lamaad mar saddexaad geek ma inta guriga jahayna afarti shanta qof waalo sheena bilki saadam lanki general gaad he kulli kan kiinay la kusugi doon taliya ciidan ma xasanta mar lamaad mar saddexaad in sandeeda ninka dadaal ma ku wareejinay taliyaha dugsiga tababarka ciidanka asluubta Dhame Xasan Xirkey ku wareejinay gurbugi maamul shay wal adduunka bilaawad taliya nool wareeg taliya ku xigeenka qaybta Dhame Xasan Cabdi Aadan Barkad iyo taliyaha dugsiga tababarada iyo tayanta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa goobta ka hadlay marka hore intan ka hambaliyay dhamaan saraakiishii ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo dalacad ka hadli dalacad danka daboyti qaar ku mid ah oo horkaas maamada Onkod Baydhabo ama Shiniye oo farxad dartiye iyana anka deegan nafkun gaale iyo dhowr qof kale oo mas'uulka ah ciidamada ka jaran tababarka dugsiga tababarka asluubta gobolka Baay meelaha hambalyo dhamaan ciidanka asluubta dhamaantii meelaha hambalyo siingu gudubni maragi dugsiga oo umfurum
ciidanka dhibowga ayaa may ku wareejinay haddii ilaahay idamooba neef gaale waana ma igmalay haddii ilaahay idamooba si imbalawtiyo ciidanka oo tawa may la garaadada qaaday xidigta qaadi sarkaalnimada indalaci iyo macna may waa uu isla jarnaya may ku wareejiyahayne taliyihii dugsiga si macna neefkun gaale uso ka qaday haddii ilaahay idamooba tan kala ma isin sheegane in geeka si imbalawti ata oo ilaahay idamooba tabarku markii lihiraw xisaabta tala ku wareer doon wali uu dhibni taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareeye Gaas Mahad Abdiraxmaan Aadan ayaa xusay hoggaanka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay ka go'an tahay dib u haweynta tayeenta iyo dhiirigelinta joogtada ah oo lagu taageerayo ciidamada qaranka ee asluubta Sirjito Baydhabo.